Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo Madaxweyne Xasan saraakiishii uu la hadlayay oo ka soo baxay tababarkii soo dhammaystay. Haddaan ugu cusubtiin subscribe-ka like noo saara, commentigana hoos ku soo qora. Haddaan ku sii socdo, Madaxweyne Xasan saraakiishii Turkiga ay tababartay iyo ku-xigeenadoodii waxaan rabaa inaan maqashiyo horta bas uu la hadlayo inaan wax ka dhahana waan rabaa. Dhegeysi wacan bal dhegeysi wacan. maanta waa maalin kale oo weyn oo ay samaysmayso taariikh muhiim ah oo ku saabsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed awood iyo caqli iyo aqoon u soo korortay waay saraakiisha geesiyaasha ee dhalinyarada ah. waxaan rabaa inaan idiin sheego inaad ka mid tihiin dhalinyarada ugu qiimi badan ee maanta Soomaaliya joogto ayaad ka mid tihiin kuwa u oggolaaday naftooda inay u hibeeyaan jiritaanka sharafta iyo karaamada dadka Soomaaliyeed, diintooda, dalkooda iyo dawladooda, in ay u hibeeyaan naftooda si ay kor u noqoto oo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay cizi iyo sharaf iyo karaamo ugu noolaadaan. qofka bini'aadamka hadiyad uu bixiyo waxaa ugu qaalisan naftiisa. naftiina ayaa diyaar la tihiin. ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii halganka dheer ay galeen ayagoo bad qaba, nool ka soo laabta, dalkana xoreeyey, dadka iyo diinta iyo dawladnimadana u gargaaray inaad noqontaan ayaan ilaahay ka baryayaa. waxaan intaas ku darayaa waalidiinta, hooyooyinka, aabbayaasha idinka idin dhalay na inay yihiin kuwa hooyooyinka iyo aabbayaasha Soomaaliyeed ugu qiimi badan, sababtoo ah waxay raalli ka noqdeen wiilashooda in ay noqdaan kuwa dalkooda difaaca, ummadooda difaaca, diintooda iyo dawladnimadoodana u hiiliya. inaad noqotaan ayay idinkugu duceeyeen, raallina idinkaga noqdeen, ayagana raalli Allah ka noqdo, waana mahadsan yihiin. dhalinyaro sida aad ogtihiin saraakiisha sharafta badanay maanta dalkeenna wuxuu marayaa heer kala guur ah. waxaan ka guuraynaa meel aan muddo dheer soo joognay oo dulmi iyo dulinimo iyo ihaano dadkeenna iyo dalkeennaba lagu dulhaayay oo dad cadow ah ay ku dulhaayeen. fikirkaas dadkeenna iyo dalkeenna lagu dhibayay fikir Soomaaliyeed maaha, fikir islaami ana maaha. waa fikir ay leeyihiin dad cadow u ah dadka Soomaaliyeed iyo dalkoodaba. dalkeennu dal kastoo dunida ku jira cadow ayuu leeyahay, laakiin cadowgoodu waana kala tabar daran yahay, waana kala tabar badan yahay, waana kala caqli iyo fikir duwan yahay. annaga kuwa nala jooga ee cadowga ah waa kuwa ugu fikir liita, ugu caqli liita, maskaxdoodu aanay fayoobeen, la adeegsado oo laga dhiga xaabada dabka lagu shito. lianna fikirka ay u taagan yihiin ee khawaarijta fikir Soomaaliyeed ma aha. kooxo yaryar oo caalamka meelo ka mida ku nool ayaa iskale fikirkaas. ma aha fikir haba yaraatee danta dadka Soomaaliyeed u adeegaya, ama dawladnimadooda u adeegaya, ama dalkooda iyo sharaftiisa ilaalinaya, ama diintooda horu marinaya. ma ahan nacayb iyo karaahiyo iyo isqarxin iyo kala dulinimo ku noolaasho iyo maxaan ku yiraahdaa waaye fikir xambaarsan. sidiisana asalkiisa waxaa la yiraahdaa idaaratul wahsh, maamulka xayawaanka. lianna qof caqli leh oo miyir qaba ma keeni karo inuu inta soo baxo boqolaal Soomaali ah oo abriya ah oo shaqaysanayso oo nool oo nolol maalmeedkooda raacdaysanay inuu soo dhex istaago inuu isku qarxiyo, ama baabuur intuu soo wado inuu ku qarxiyo, midna u soo sameeyo qaraxa, midna u soo dhiibo. ma caqli fiyow iyo qof wanaagsan midna ma ku fikiro. dadka waa la maan gaday
dhalinyarada meesha jirtay waa la maangaday waa u baaqnay in ay ka soo noqdaan wadadaas habowga ah oo ay u soo noqdaan wadada saxda ah iyo nolosha saxda ah iyo karaamada iyo sharafta iyo ciziga dadkooda iyo dawladooda ay leeyihiin inay u soo noqdaan diintooda xaniifka ah oo dhowrsan oo naxariista karaamada walaqad karramnaa bani aadama karaamada bini aadamka ilaahay uu ku manaystay ee u samaysan in qofka bini aadamka la karaameeyo sidiisaba nolosha bini aadamka oo ay karaamaysan tahay midda muslimiintana waa ugu sii karaamo badan tahay waxa ay daadinayaan waa dhiig muslimiin dad muslimiin ah oo saaki soo tukaday ama masaajidka dhex taagan ama masaajidka soo baxay iridiisa maraya ninka dilay ee magaca ilaahay sheeganaya Allahu akbar inta yiraahdo maxaan ku xaq ku dhaqaaqaya nin fayowba yahay wiilasheennii virus ayaa maskaxda laga geliyey waa u caqli celinay waana wadeynaa ka caajisi mayno kana daali mayno inaanu caqli celinno in ay fahmaan wadada saxda oo ay ka soo laabtaan kuwii soo laabto ee ka tanasulee ka daawooba cudurkaas xunka ah wiilasheenni waay dalkan ayaa dalkoodii ah dowladdan ayaa dowladdoodii ah dadkan ayaa dadkoodii ah waa soo dhaweynaynaa waxa ay mudan yihiin iyo sharafta iyo karaamada ay mudan yihiin la siinayaa lama bahdilayo lama dulaynayo lama ceebaynayo lama caynayo laakiin waa bahdilan yihiin waana dulaysan yihiin waana ceebaysan yihiin inta ay khawaarijta ku dhex jiraan ay khawaarij yihiin khawaarijtu sharaf dhexdeeda ma jirto oo adduunyo ma jirto oo aakhiro wanaagsan ma jirto ha ku habsaamina ee ka soo baxa ayaan leenahay kuwii ka soo baxana soo dhawaadaan leenahay waxaan rabaa saraakiisha maanta halkan ku qalin jibisay albaabkii hoggaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaad soo gasheen albaabkaasi waa fog yahay dhexdiisa ku soo socda sida haddaba aad safar u soo gasheen si aad albaabkan u soo gashaan waxaan rajaynaynaa inaad safar kaloo dheer aad gashaan si aad u gaartaan darajada maanta waxaad ku astaysan tahay inaad tahay hogaamiye ama koox soddon hogaami ama horin hogaami ama urur hogaami hore u sii soco ilaa aad taliyaha ciidanka aad ka gaarto jaranjartaasi waa dheer tahay waanay kuu furan tahay jaranjartaasi waxaa lagula tillaabsadaa aqoon sidaas daraaddeed waxbarta ha ka caajisina waxbarashada jaranjartaas waxaa lagula tillaabsadaa discibliin marna ha ka tegina ilaaliya discibliinka askariga aad xukumaysaana ku rabaayaya inuu discibliinka ilaaliyo jaranjartaas waxaa lagula taagsadaa oo looga gudbaa geesinimo waxqabad waxtar markii la baahdo markii la cabsado markii dareen la dareemo in lagu soo xasuustaan rabaa war aawey hebel geesigii hebel ahay aawo in lagu yiraaho lagu soo xasuustaan rabaa nin hadduu tago aan la tabayn hadduu joogo aan la xisayn ha naqanina uma tarbiyaysniin uma carbisnidiin inaad noqotaan sidaas dhalinyaraad tihiin 30 40 50 sano soo socda ayaa laga yaabaa inaad nooshihiin haddii alla yiraaha ilaahay cimri dheer aad siiyo sharaf ku noolaada magac iyo maqaam sare oo mujtamaca dhexdiisa aad ku yeelataan ku noolaada idinka ayayna gacmihiina ku xiran tahay iyo caqligiina inaad sidaas noqotaan meeshaas gaartaan sarkaal kasta oo maanta garbiisa ay gaduudan yihiin oo janan ah oo korneyl ah oo maxaan ku yiraahdaa inta ka ah maalin oo meesha aad taagan tahay maanta soo istaagay maalin noloshiisa kamida ayuu meeshaad maanta taagan tahay soo istaagay waxaa laga yaabaa maantana sareeyo gaas Ibrahim Sheekh Muxudiin inaan maxaan ku yiraahdaa maanta aan leenahay markaan u dhawaaqayna taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laakiin maalin oo meeshaad taagnaa
oo inta maanta la idin leeyahay mas'uuliyiintii berigaa joogtay ay lahayd ama inta maanta garaadaha la idin xirayay maanta asna loo xirayay iyo inta kale faraha badan oo jananada sareeyaasha ah ee jooga muxuu ahay ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed safarkaas bilowga ah waxaan rajaynayaa inaad ka marinaysan intaas kadib waxaan rabaa inaan aad iyo aad u mahad celiyo si qalbi iyo niyad samaan ah walaalaheen Turkiya madaxweynahooda Rajab Tayyip Erdogan dowladda Turkiya dadweynaha shacabka reer Turkiya waa kuwa Soomaaliya garab istaago mar walba oo ay baahi qabaan baahiyadaas oon hal ahayn oo isku mid ahayn maalintii aan u baahnayn in maxaan ku raad biyo lagu qabto oo aan liidanay waana garab istaageen umanaan tan oo raashin ay dalka keenay ma keenin kaliya ee waa noo garab istaageen kii aan karsa karin inay u kariyaan kii karsa karana inay siiyaan oo gurigiis ku karsado ay yahay maalintii ay magaalada Muqdisho meel laga guuray oo qashinku uu dhooban yahay oo wadooyinka qashin uu xiray nimankii noo yimiday ee qashinka wadooyinka ka qaaday ayagay ahaayeen nagu dhiirigeliyay rajada noo abuuray inaan qashinka iska qaadi karno oo aan muxuu ahay soo qalabkii iyo agabkii loo baahnayna nala soo garab istaagay maalintii aan difaac u baahnayn oo cadow dhib badan oo nagu habsadayna inaan iska qaadna aan u istaagnayna wayna garab istaageen waxay nagu garab istaageen aqoon waa tamaanta aan u taagannahay waxay nagu garab istaageen qalab waa midka aan wadano oo aan furimaha la joogno maalin dhaweedna aan soo bandhigayno koodii luuli qayb ka mid ah waxay nagu garab istaageen meedaanka ama goobta dagaalka in ay maxaan ku raad nagala qayb qaataan sidaas daraadeed waa walaalo naga mudan mahad celin iyo sharaf iyo karaamo aan u hayno maalin maalmaha ka midana ilaahay idankiis ummadda Soomaaliyeed way u abaalgudi doontaa dalka Turkiya waxsiismadu waa la wada helaa waxna waa la isiisiyaa dad badan ayaana waxna siiyo cid kasta oo Soomaaliya garab istaagtay mustaway doonta iyo levelkooda doonta ku garab istaagtay way maadsan tahay laakiin midda Turkiya halaa la jirta sharaf iyo karaamo iyo qadarin iyo waxa la jirta maxaan ku yiraahdaa dhowris yaa la jirta dana gaara iyo xarka gadaal uga xiran oo lagu jiidayo ama diblomaasiyadeena iyo dawladnimadeena lagu dhantaalayo ama lagu hagayo midna kuma xirna kaalmo badan xarka badan gadaal uga xiran oo mar walba dhinac loo jiido tani xarka kuma xirna annaguna abaalgudka ugu fiican oo maanta aan sii karna waxay tahay wixii ayna bareen oo aan siday noo bareen u isticmaalno wixii qalab ah iyo agab ah oo ayna siiyeen oo sida ugu fiican aan u isticmaalno iyo markaan dalkooda tagno inaan discipline iyo nidaam aan la joogno oo shuruucda dalkaas aan ilaalino oo aan dhaqankooda iyo taqaaliidooda aan aad iyo aad u dhowrno oo aan u aragno dad sharaf iyo karaamo mudan inay yihiin inta aan la joogno dalkooda joogno oo aan waxbarashada iyo maxaan carabiska aan u tagayn haddii aan la yiraahdo waxaan rajaynayaa intaasoo dhan inaad ka miro dhalisaan mar kale walaalihiin saraakiil xigeen leh ciidan leh ayaa frontiga jooga idin sugayo oo maanta markay khabaarkan maqlaan aad iyo aad ugu farxayo waxbarashadu weli inay sii socoto ilaa waxbarasho ma dhammaate yaa la ii sheegay laakiin dadaala kuwa waxbarashada ku habsaamo oo waqtigii loogu talagalay ay la dhaafto oo ku daaha ha noqonina ilaa waa lidin sugayaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan waa idin sugayaan
walaalihiinna saaxiibadiin ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee frontiga jirana way idin sugayaan. waxaan idin rajaynayaa guul, waxaan idin rajaynayaa nolol wanaagsan. madaxweyne xasan wuxuu leeyahay saraakiisha wuu u mahadcelinayaa, wuxuu leeyahay waalidiintiin na waa mahadsan yihiin, idinkuna waa mahadsantihiin. waxaa ku mahadsantihiin idinku haddaad ba dhahdeen dadka macnihii dalkeen iyo dadkeena u shaqaynaynaa, waad ku mahadsantihiin. waalidiintiina waa ku mahadsan yihiin in ay dalkiina u shaqaysaan ay raalli ka yihiin, way ku mahadsan yihiin. hadaladiisa anigu waxaan ka dhadhamiyey madaxweyne xasan saraakiishan 3 sano ayaa la tababarayaa layidhi. waxaa meeshaa ka muuqata madaxweynihii hore xayuu malaayiin farmaajo inuu saraakiishan asagu xilligu xukumay dowladda in tababarka loo bilaabay. marka hadaladiisa waxaa ka mid a madaxweyne xasan wuxuu leeyahay 70 sano wuu dhaafay. madaxweyne xasan wuxuu leeyahay 30 sano 40 sano 50 sanaad noolaan kartaan buu ku leeyahay dadkii saraakiishii buu ku leeyahay. furinta ciidamada jooga waa idinku faraxsan yihiin, dadkoo dhan waa idinku faraxsan yihiin. anigu halkaas waxaan ka dhadhamiyey horta nolosha xasan ma uu hayo, laakiinse kuwii hore meeshay mareen wixii uu farmaajo uu qoray ciidamoo dhan waa la laayay. gorgor ciidamadii la dhahayay horta farxan qoroole waa sii ku yidhi 30 sano baad noolaan kartaa oo dambe. farxaanow adeerkaay ahayd dhiiqaa lagu gashay, dhiiqaa lagu gashay ka soo bax farmaajo ciidankiisa. waad maqlayseen. wuxuu kaloo yidhi odawaayow ka soo bax, haddii aad aamustid dembiga qayb baa ka tahay. odawaawo kaas cararay dhowr jeer in la dilaa la damcay. Etoobiya mar fakisay baadiyo ku badbaaday, ugu dambeyn waa shaqayn waaye. farxan qoroole qarax baa inta loo diyaariyey, meeshii markuu tagay baa lagu qarxiyey, waa dhintay. waxaasoo dhan xasan wuxuu ka urinayaa ciidamadan farmaajo uu qoray oo dhan. farmaajo ka urinayaa, wuxuu leeyahay farmaajaa qoray, ama hawiyahaado ama daarood ahaado taliyaha. wuxuu aaminsan yahay farmaajo ciidamadii uu sameeyey oo dhan inuu farmaajo inay farmaajo u shaqaynayaan buu aaminsan yahay, inuuna baabi'iyuu rabaa. kuwii hore waa la baabi'iyey, farxaan qoroole iyo nimankii ku xigoo dhan waa dhinteen. kulligood inta la geeyey meelaha al-shabaabka joogaan oo xataa al-shabaab lagu dhex daray yaa qaarna laysku qarxiyey, qaarna teleefonadaa laga dansaday khadkii, halkaasaa lagu baabi'iyey. marka anigu waxaan leeyahay nimankan hadda saraakiisha ah uu xasan la hadlayey, xasan waxba idinma qarin. hadda wuxuu idin yidhi 30 sano waad noolaan kartaan iyo 40 sano iyo 50 sano. wuxuu kaloo yidhi ilaahay ha idin badbaadsho, kuwii guulaysto badbaadaha ilaahay ha idinka dhigo. laakiinse waxaan idiin sheegayaa waxaa idin fiican dowlad laisku hadlayo ma jirtee madaxweyne xasan inuusan idin dhammayn oo furinta intuu idin geeyo oo al-shabaab intuu idinku daro uusan idin baabi'in. intaas baan idinka codsanaya ood is ilaalisaan. nin walbana waxaa u fiican kuwii ugu horreeyey ee laga keenay meeshii ilaahay Eritrea oo lagu soo daray, kulli waa la isku dhex qarxiyey. al-shabaab baa isku dhex qarxiyey, wax yarna way fakadeen oo ehladooda aadeen, mushaarna lama siin. marka waxaa idin fiican saraakiisha anigu la hadlaya, waxaa idin fiican nin walba hadduusan doonayn inuu hooyadiis iyo reerkooda uu ka gablamo, hadduusan doonayn reerkooda inuu ka dhinto, hadduusan doonayn, anigu waxaan oran lahaa dowlad
xalaala intay ka dhalanayso madaxweyne xasan ha u shaqaynina. wuxuu idin qariyay ma laha. 30 sano aan noolaan kartaa mar haddii lagu yiri 40 sano 50 sano hadalkiina lagugu daray ilaahay haydan badbaasho inaad waxaa la rabaa aad dalka u shaqaysaan oo cadowga aad kasoo micnihii baabi'isaan. haddii laydin dhahay idinkaa laydin baabi'inayaa. madaxweyne xasan idinku idin baabi'inayaa. turki baan u mahadcelinaynaa iyo xaq baynu ugu leeyihin. waxaas oo dhan waa sheeko. anigu waxaan idin oran lahaa waanu maqli doonaa idinkoo idin baabi'iyey. haddiidan hadalka maqline waxaan idin oran lahaa dowlad xalaala inta ka imaanayso oo ninkan 2 sano u hartay ka yare xasan 2 sano ka yar baa u hartay. dowlad xalaala inta ka imaanayso guryihiina iyo reerihiina iska aada. haddii uu farmaajo soo laabto madaxweyne farmaajo iyo hadduu mid kaloo fiican yimaado markaas imaada. laakiinse ninkan xasan la leeyahay dowladdiisoo dhan waa al-shabaab. ninka jaamaca la dhaho magaca jaamaca la dhaho waxaa lagu yaqaanaa al-shabaab. waa nin al-shabaaba dadku gowrici jiray baa layiri. cabdiqaadir baa la dhahay baa waa nin oromaya. wasiirka gaashaandhigga laga dhigay. wasiirka diinta iyo awqaastana waxaa laga dhigay ninkii dadka markii ku baabeen dadka Soomaalida markii la qarxiyay ninkii dhihi jiray oo ku faraxsanaa gaaladii la baabiyay ninkii dhihi jiray Mukhtaar Roobow. asagana diinta iyo awqaashta laga dhigay. wuuna xirnaa xilligii farmaajo wuu xiray. farmaajo dartiisu usoo daayay diinta iyo awqaastoona ka dhigay. anigu waxaan oran lahaa nimankaas saraakiisha iyo ku-xigeenadooda waxaan oran lahaa niman hadda caqli leedihiin intaan laydin dilin guryihiina aada. xasan sheekh waa idin baabi'in doonaa. wuxuuna idinka urinayaa xilligii farmaajo in laydin qoray oo tababar laydin xareeyey oo turki idin soo tababaray. halkaas idinka urinayaa yaa laydin baabi'inayna guryihiina aada. haddaad diidaanna dee lax walba shilkay isdhigtaa lagu gowracaa. marka laydin gowraco dadku way arkayaan. waana kuwii hore meesha mareen baad maraysaan. de sidii al-shabaab baa baabi'iyaa la leeyahay. halkaasay sheekadiina ku dhammaanaysaa. xasan idima dhalin. ciidamadii qaybtii ay u dhiibtay Eritrea waa baabeen. waa la isku qarxiyey. qaarna dadkooda u carareen. mushaarna lama siin. marka xasan dowlad goboleedyadana waa la dagaashan yahay. dhulkii iyo dalkii oo dhan intuu gadan kara xamarna wuu gatay. marka dowlad ma jirtee saraakiil haddaad waxbarateen waxbarashadiina meel kale ku saa'idsada. xasan hadalkiisa ha maqlina. howlgaluu idin dirana ha aadina. intaasaan idinkula talinayaa. haddaad diidaan haddee nin horta kula taliyay kuma dilin horaa loo yiri. haddaad diidaanna idinka idin taallaa saa yeelaysaan. isagana howshiisu idinka qabsanayaa. barnaamijka halkaasaan uga baxaya. daawashadiina waa ku mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. nabaday.